kusoo dhawaada galwareed magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa mar kale ka soo ifbaxday dagaal siyaasadeed u dhaxeeya mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee maamulkaasi. madaxweyne cali guudlaawe ayaa habeennimadii xalay ka xayuubiyey xilkii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xubinimadiiba ee gudoomiyihii guddigaasi diini, waxaana la isku maandhaafay jadwal ay soo saareen guddiga oo ku saabsanaa kuraas saddex uu ka mid yahay kursiga ay ku fadhido xildhibaanada aamine maxamed cabdi hob 135. sheergaraya warbixinta galwareed ee maanta oo aanu ku dul istaagi doono khilaafka siyaasadeed ee ka taagan magaalada beledweyne iyo saameynta uu ku yeelan karo kuraasta taala deegaankaasi. dib u dhaca doorashada oo mar kale laga baqayo iyo xiisada hirshabeelle oo isu bedeli karta gacanka hadal maadaama musharaxiinta ku sugan deegaanku ay wada hubaysan yihiin. beejkanana soo falow gareeya waa hagaag aan ku bilaabo. madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa saqday dhexe ee xalay waxa uu xilkii gudoomiyaha guddiga doorashada iyo xubinimadiiba ka xayuubiyey gudoomiyihii guddigaasi kadib markii uu soo saaray shaacinta ergada soo xulaysa xildhibaanada golaha shacabka ee 3 kursi oo taala deegaanada maamulka Hirshabeelle. gudoomiye Axmed Xasan Diini ayaa laga xayuubiyey xubinimadii guddiga waxaana booskiisii lagu bedelay Maxamed Xuseen Maxamed Waadi oo ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle. xilka qaadistan ayaa timid kadib markii gudoomiyihii guddigaasi uu soo saaray warqad ay ku qornaayeen odayaal la sheegay inay soo xulayaan ergada dooranaysa 3 kursi oo ka mid ah kuraasta taala beledweyne. tallaabadan ka hor page-ka Facebook ee guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa laga saaray warqada lagu shaacinayo guddiga xulista 3 kursi oo ku jira hob 135 oo aan ahayn odayaashii saxda ahaa. kursigani waa mid ay ku fadhiso xildhibaanada aamine maxamed cabdi sida maamulka Hirshabeelle ay sheegeen. waxaa loo maray habaraac qaladan oo aan lagu soo xuli karin odayaasha soo saaraysa ergada doorashada. gudoomiyaha guddiga ee xubinimada guddiga laga saaray Axmed Xasan Diini ayaa la sheegay inuu ka dambeeyay shaacinta liiskaasi been abuurka lagu tilmaamay, isagoo heshiis la galay musharax gaar oo diidan in loo furo kursiga uu doonayo oo uu tartan nadiif ah ku galo. madaxtooyada Hirshabeelle ayaa ku tilmaamtay liiskaasi la shaaciyay mid been abuur ah oo dhawaan la shaacinayay liiska saxda ah, lalana xisaabtami doono ciddii ka dambeysay been abuurkaasi. madaxweyne Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed ayaa waran ka helay magaalada beledweyne waxay sheegeen inuu soo kala dhaxgalay khilaaf siyaasadeed sababay inay kala irdhoobaan labada nin. sidoo kale waxay guddiyada doorashooyinka Hirshabeelle la kala safan yihiin labada dhinac, iyadoo xubnihii ugu badnaa ee guddiga ay mareen dhinaca madaxweyne Dabageed halka koox yar oo guddiga ka tirsan ay la safan yihiin madaxweyne Cali Guudlaawe. sidoo kale musharaxiinta magaalada beledweyne ku sugan ayaa hubaysan iyagoo qaarkood wacd ku maray haddii kuraastooda la isku dayo in la xiro ay dagaal magaalada ka abuuri doonaan. xaaladda beledweyne ayaa bilihii lasoo dhaafay ahayd mid kacsan tan iyo markii uu tegay madaxweyne Cali Guudlaawe, waxaana dhowr jeer hore ka dhacay shaqaaqooyin la xiriiray hanaanka loo maareynayo kuraasta taala magaalada beledweyne. kooxo dana gaara kale doorashada oo raba inay dad gaara ku soo saaraan kuraasta ayaa la sheegay inay ka degeeladay magaalada beledweyne, iyadoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid caddaysay qaabka loo maareynayo kuraastan iyo heshiis rasmi oo laga gaaray. Hirshabeelle waxa ay ka mid tahay maamulada doorashada weli ku dhiman tahay, waana Hirshabeelle iyo Jubbaland marka loo eego si guud doorashada xildhibaanada golaha shacabka, iyadoo la wada ogyahay in Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir iyo reer waqooyiguba soo gabagabeeyeen. sheergaraya warbixinta qaybta faaladan ugu wadaag rabtidiina tan iyo kulanti dambana nabadgeliyo.